wiil ayaa hooyadii ku yidhi, hooyo, gabadha aan mustaqbalka la wadaagayo waa inay leedahay kartidaada iyo garaadkaaga oo kale. Hooyadii intay dhoola caddaysay ay ku tiri, hooyo, way adag tahay inaad heshid inan yar oo hadda sidayda oo kale ah, laakiin waa suurtagal inay hadhow kuu noqoto mid iga sii wanaagsan. Sababtoo ah bay tiri, markaan gabarta yar ahaa sidaa iyo si u dhow toona ma ahayn, laakiin maalintii aan aabbaha isguursanay ee aan adiga ku dhalay, waxa aan ku hamiyey in aad noqotid hanad khayrkii wax dheer, si aan kaaga dhigo qofka aan rabo inaad noqotid. Waxa aan go'aansaday inaan anigu marka hore noqdo xaaska dunida ugu wanaagsan. Markaan noqday oori wanaagsan, waxaa ii dhib yaraatay inaan noqdo hooyada dunida ugu wanaagsan. Sababtoo ah waxaan kasbaday oo aan kaashaday saygayga oo aan la'aantii wax badan ii hagaagi lahayn. Waxayna siisay wiilkeedii taladan aadka u qiimaha badan, hooyo, qofkii alle ku calfaba guurso. Kadib go'aankii aan qaatay oo kala qaado, go'aankaasoo ah inaad adigu marka hore aad noqotid qofka aad rabtid inuu wiilkaagu noqdo. Markaas ayay ooridaaduna noqon hooyo u qalanta aabbahaas qiimaha badan. Haa, waxaa hubaal ah inuu ubadkaagu hooyadooda ay noqon doonto mid aniga iga sii wanaagsan. Ogow, guurkaagu waa noloshaada.